ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo kaashanaya ciidamada Jabuuti ee AMISOM ayaa maanta si rasmi ah ugu guuleystay in magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan uu keeno gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise oo shaqo ka dhalatay socdaal madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ku doonayay inuu ku tago deegaanka Jaweel ugu xanibneed dhowr maalin deegaanka Jaweel gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa ku sugan aqalka gobolka oo ay joogaan madaxweynaha Hirshabelle gudoomiyaha gobolka iyo madax ka mid ah labada gole ee Hirshabelle madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Cali Jayti Cismaan iyo madax kale oo Hirshabelle ka mid ah oo Beledweyne ku sugan ayaa dhowr jeer ku guuldareystay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise ay keenaan Beledweyne isla markaana ay ku qanciyaan dadka ku nool deegaanka Ceelgaal oo kacdoon ka dhan ah socdaalka madaxweyne Waare ee Jaweel awgeed u hakiyay isu socodkii Beledweyne iyo Jaweel ee madaxda Hirshabelle ay isaga kala gooshi lahaayeen iyo booqashadii madaxweynaha Hirshabelle ee Jaweel madaxda Hirshabelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu sareysa ayaa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble waxa ay si aad ah uga mahad celiyeen tallaabada nabadeed ee ugaaska uu qaaday. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka caalamiga Hiiraan Bile, Beledweyne.